إن شاء الله ودقيسته أوكي وين ردوا إن شاء الله حسده ودوا مساء أوكي أرضي أنا رتي وحكرت لنا يا أرضي كسته كوسو قلا المجع وقرن وكجتش روح الله يقانه الله المستعان وجرو كوسو قلا رتي مجعيسة أوكي أوكي كوسو قلا ويا أرضي ما نركيا هذا سوق الجلسة مسوعة سنة لكن أنا المجعود الجروب كده حركي مركان أنت أرضي جروب وشاب إن شاء الله أوكي واسكا بنعمل دونا إن شاء الله حسده الحسدين إن شاء الله waxaan ku hadli doonaa wax runtii psychology training la xiriira oo runtii aad u muhiim ah oran karana waxay ka muhiimsan tahay wax badan oo runtii ardaydu ama aysan dadku waqti gelin ay runtii ka muhiimsan tahay in sha Allah ka hadli doonaa qaybta dambe xisadana in sha Allah waxaan isleegi doonaa sadawiski iyo waxyaabaha ardaydu soo direen iyo trainingski ardaydu qaateen ee soo share gareeyeen baan in sha Allah isla marin doonaa okay one more time hadaan noo soo share gareeyo okay waxaynu ka hadli doonaa maanta runtii qodob aynu bixinay ama se ku magacawnay maraaxisha ay tradersku maraan macna qofku marka uu traderka yahay runtii marxalado uu mara ayaa jira waayo adduunka wax kasto la yaqaanba waxa jira marxalado ay soo maraan taas macnaheedu waxay ka dhigan tahay qofka traderka hadduusan maraaxil soo marin macnaheedu markiiba halka u sarreysa ku boodi maayo midda kale marxaladahan aynu ka hadlaynaa waxa weeyaan maraaxisha haddii uu qofka aad aragto macna qof boqolaal sameynaya ama balaayiin sameynaya ama kumanaan sameynaya isla markaasna aan maraaxishan ku dhihin waan soo maray macnaheedu waxay ka dhigantay inuusan waxa uu sheegayaa run ahayn ama se inay u harsan yihiin oo aysan waxba ahayn inuu lacagtaas oo dhan khasaariyo okay toos baynu iskaga guda geli doonaa waxaynu shantan marxaladood ayaynu runtii kusoo koobi doonaa marxaladda u horeysa waxa loo yaqaano waa khasaare fara badan macna qofku marka uu suuqa soo galo waxa uu la kulmaa runtii khasaare aad u fara badan ayuu runtii kala kulmaa suuqan waay uu gala kulmaya sababta uu gala kulmaya waxay tahay qofku ma garanayo wuxuu arkayaa in dadkan boqolaalka sameynaya iyo waxyaabo yaryar oo isticmaalayaan oo kofarana uu arkaya laakiin khasaaraha suuqa lagala kulmi karo runtii uma dhaadhacsana taasi waxay keeni doontaa in boqolaal uu ku shubay uu maalmo gudahood ama wiiga gudahood runtii ku waayo qodobka labaad ama step 2 ayuu qofku markaas u gudbi doonaa oo ah inuu khasaarihii yareeyo macnaheedu marka ku leeyahay step 2 buu u gudbayaa ma aha markuu wiil ku jiro markuu shan cisho ku jiro markuu bil ku jiro markuu sanad ku jiro ayuu u gudbayaa ma aha waxay ku xidhan tahay qofka fahankiisa iyo controlka naftiisa siduu u hayo macna dadka qaarna waa dad naftooda controli kara isla markaasna mantira daba fadhiya oo waxa la yiraahdo sameeya qofna waa qof isagu jecel naftiisa hogaamiyo oo ilaa qof badarkiisa suuqa soo galay oo 10 jeer isku xigta lacag gubaya qofna markuu laba jeer gubo ayuu runtii dareemaya wax oo runtii uu tashanaya that's why we can say qof markaas marxaladda labaad oo ah inuu khasaarihii yareeyo u gudbo khasaarahan uu yareynaya aqoon ahaan ma aha laakiin waxa karaya khasaarihii iyo losseski faraha badnaa ee uu gelayay baa karaya taasi waxay keenaysaa inuu losseski lacagta ku gelay yareeyo inuu tradeski u qaadanayo yareeyo inuu Allahu musta'aanay saacadihii uu trade gareeyay yareeyo waxyaabo badan buu runtii qofkii yareynaya kadibna khasaarihiisi baa yareynaya marxaladda saddexaad ayuu markaas qofku u gudbi doonaa oo loo yaqaano khasaare iyo faa'iido macna qofku waa khasaaraya hadana waa faa'iidaya khasaaraya uu faa'iidaya maanta 5 trade buu galaya 5tiiba waa faa'iidaya haddana 5tii kale ee uu biri galay ayuu khasaaraya ama 5tu gelinka hore galay 5 gelinka dambe ayuu ku los gareynaya waxa loo yaqaan khasaare iyo faa'iido istabtaas saddexaad qofku marka uu soo gaaro waxa la yiraahdaa waa meesha ay ka bilaabmato aqoontu ama se runtii waa meel macna wuxuu soo gaaraa meel aqoontiisu qofkaasi fiican tahay oo uu runtii barbareyn karo oo khasaare iyo faa'iido isku celcelin karo waana inta badan meesha dadku inta u badan ay taagnaadaan muddada ku qaadata inay ka gudbaan qaybtaas qayb afraad baa markaasi jirta oo marka uu wixii fariisiyo nidaamkiisii iyo systemkiisii fariisiyo uu gudbo loo yaqaano faa'iido joogto ah inuu qofkaasi galo faa'iidada joogtada ah ee uu gelaya macnaheedu ma aha waa la skareenaya ma aha laakiin maanta haddii 10 trade galo 10 ka trade 8 kamid ah ayuu gareynaya laba ama mid la skareenaya mar walba suuqi ka baxaba wuxuu arkayaa in isugu faa'iido suuqi kaga jiro haddii doon hal trade ba ahaade inuu suuqi faa'iido uu kala baxay oo runtii faa'iido joogo oo uusan khasaare joogin
qaybta saddex afshanaad ee u dambaysa waxa weeyaan waxa loo yaqaano profitable trader waana meesha dadku u ordaan ee qof kastoo trader isku dayo inuu gaadho oo runtii aado waana marxaladda u dambaysa qofku waa meesha uu qofku ogaado lacagta uu samayn karo isla markaasna suuqa goortu doono uu soo geli karo goortu doono ama lacagta uu doono ka samayn karo waxaad arkaysaa qof suuqii maanta $10 la soo gelaya $1 ku gaarsiinaya saacad gudaheed ama wax ka yar ku gaarsiinaya macnaheedu waxay ka dhigan tahay qofkani waxaan uu isticmaalayaa isna ma aha wax bakhtiyaanasiiba ma aha mana aha wax kale uu dadka dheeriyay laakiin qofkani waa qof akhristay inuu marxaladahan soo maray marxaladan uu hadda marayana garanaya wuxuu qofkaasi garanayaa saacaddu tiraadgareeyo faa'iidada sameeyo wuxuu garanayaa lacagta uu la soo geli karo wuxuu garanayaa lacagta uu maanta win garayn karo lacagta uu las garayn karo wax kasta waa u xisaabsan yihiin waxaa loo yaqaanaa profitable trader ayaa runtii loo yaqaanaa okay aan ka gudbo markaas aan ka gudbo waxaan u gudbay wax loo yaqaano miisaanka maraaxisha waa maxay dee macnaa hadda shantan marxaladood aan soo sheegay maxaan isku ogaan karaa qofku waxa uu isweydiinaya shantii marxaladood okay gartay shantii marxaladood waa kuwana haddaba anigu shakhsi ahaan maxaan ku ogaan karaa marxaladda aan marayo ma tii horreysaan maraya ma tashanaad baan maraya ma talabaad baan maraya ma tasaddexaad baan maraya okay waxaad isa saari doontaa miisaankan ayaad isa saari doontaa miisaankan markaad isa saarto waxa kaaga soo bixi doona marxaladda aad marayso okay waan ka gudbo qodobka koobaad ama nuqladda koobaad ee laga doonaya waxay tahay in uu qofkaasi haysto system isku xidhan macnaa waxa laga doonaya inaad buuxiso 100% waxa laga doonaya inaad buuxiso baan ku ri 100% inaad buuxiso oo dhamaystirta ayaa laga doonaya 100% ayaa laga doonaya runtii inaad xidho 100% iyo markaa qayb loo sii sameynaya oo way 100 hadda ku dhacdo waa inaad wax barato 100% taas laga doonaya macnaheedu waxay ka dhigan tahay waa inaad wax barato waxbarashada intaas oo qaybood u qaybsanaysa haddaan ku dhaw waa inaad patient samayso 100% macnaheedu waxay ka dhigan tahay qofkii inuusan wixii fahmin ama si la doonayo uusan u garan baa laga yaabaa waxaan u qaybin doonaa markaas sida loo qaybqaybiyay ugu saxsan baynu qaybqaybin doonaa waxa laga doonayaa baan ku ri 100% inaad buuxiso oo qayb runtii ka dhigan inuu haysto system isku xidhan waxay ka dhigan tahay 10% baa laga doonayaa qof macnaha okay codka ardaygaas iska xidho inuu haysto baan ku ri maxay 10% 10% inuu haysto ayaa laga doonaya inuu haysto system isku xidhan systemka isku xidhan muxuu yahay hadaba isagii baa A iyo B iyo C iyo D insha Allah inuu sii qaybin doonaa ko ama A haddaynu siino 3% waxa laga doonayaa inay kuu qeexan tahay trader nooca aad tahay markaan ku leeyahay trader nooca aad tahay waxaynu uga jeednaa inaad og tahay oo meel kuugu qoran tahay ama aad macna ay book kuugu qoran tahay journal bookaaga ay kuugu taalo oo runtii og tahay trader nooca aad tahay ma qof 7 cisho trade gareeyaa tahay ma qof 5 cisho trade gareeyaa tahay ma qof 3 cisho trade gareeyaa tahay macna waa inaad garan karaysaa laba waa in aad og tahay sida aad suuq u falanqayso oo iyaduna ah 3% macna sida aad suuq u falanqayso maxaa soo hoos galaya waxa soo hoos galaya macna maxaad isticmaashaa ma support and resistance baad isticmaashaa ma indicator baad isticmaashaa ma candlestick psychology baad isticmaashaa ma waxaad isticmaashaa nidaamka aynu isticmaalnay RS strategy ma anada option kalaad isticmaashaa ma signal baad qaadataa maxaad ku trade gareysaa way ay waxyaabahan sida tan u siinayna waxyaabaha sababta sida tan ay u leenahay waxa weeyaan hadda tusaale ahaan trader nooca tahay inaad haysato maxay muhiim ku jira ama maxay muhiimada leedahay waxay muhiimada leedahay haddaad maanta trade gareyso just 5 days macnaheedu waxay ka dhigan tahay 5 cisho waxaad baran doontaa waxyaabo badan oo suuqu soo celceliyo oo repetition loo yaqaano oo soo noqnoqda ayaad garan doontaa laakiin ka waran haddii aad maalin 5 cisho trade gareyso maalin 2 cisho trade gareyso week aad trade gareyn week aad OTC trade gareyso the week ba haddaad suuqii koona kaga timaado waxaad ka dhigan tahay nin gaari wata oo marna u baxa runtii galbeed mar bari u baxa mar koonfur u baxa mar kol dhan waqooyi u baxa mar magaalada uu jooga dhex meeraysta qof aan haba yaraatay wax direction lahayn baad ka dhigan tahay ama nin bakhaar haysto kol bas aad fura ama maalinba weegiiba mar furaad ka dhigan tahay laakiin waxaa waa inay kuu leeyihiin wax xadidan ay kuu leeyihiin oo runtii garanayso meel fadhiiso qoro 3 cisho suuqa trade gareeya 5 cisho trade gareeya 7 cisho trade gareeya waa inaad garanayso waa inaad saacadda trade gareynaysa garanayso waa inay wax walba runtii kuu qoran yihiin sidoo kale waa inaad kuu qoran tahay falanqayntu oo 3% idana laga doonayo waxaad ku trade gareynaysaa waa inaanad suuqa trade ka aragtay baan iska qaado mar trade line saaran mar candlestick psychology ku boodin mar indicator ku boodin mar another option kale ku boodin waa inay runtii ku cadahay
C waxa laga doonaya iyadana inaad garanayso trader plan wax loo yaqaano oo labadan option marka IQ option la joogo lagu soo koobo xilliga aad trade garayso iyo entry strategy oo laba shay oo runtii aad u muhiim ah xilliga aad trade garaynayso maxaa looga jeedaa macna xilliga aad trade garaynayso waxa weeyaan waqtiga aad trade garaynayso ama timingka aad trade garaynayso inay ku caddahay iyo entry strategy oo ah goorta aad trade-kaaga gelayso macna trade-kaaga goorma ayaad qaadanaysaa way kala duwan tahay inaan ku idhaahdo trade-kaas waan sugayaa markuu bartaa yimaado waan gelayaa iyo marka uu yimaado inaan galaa laba option oo kala duwan weeyaan markuu yimaado inaan sugo macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaan structure-kii wixii saxan yihiin inaan hadhow higher ama lower idhaahdaana waxay ku xidhan tahay inaan confirmation-kii meesha ka helo okay markaas trader plan labadaas lagu soo koobaya hadda markaas maxaad iga haysaa waxaad iga haysaa 10% boqolkii waxaad iga haysaa maxay boqolkii aynu doonayno inaynu xidhno maxaad iga haysaa 10% baad iga haysaa oo ah 4% oo trader plan iyo 6% oo runtii ah labadan option ee kala okay aan ka soo gudbo aan hore uga markaasi aan uga socdo okay waxa soo haray 10% kale oo isagana laga doonayo inaad isagana sidiisa laga doonayo inaad u dhameystirto waxa loo yaqaanaa waa patient ama se waa dulqaadku muxuu noqonayaa dulqaadku Soomaali ahaan kulli dulqaad muxuu noqonayaa waan filayaa wax kale lagu sii gudbo ma garanayo patient isagana waxa laga doonayaa waa 10% ay suuqan ka yahay 10% ay suuqan ka yahay maxaa la sugayaa hadda su'aashu waxay tahay patientigi waad maqashay wax badan baad maqashay inuu leeyahay patient samir samee dulqaado maxaa wax la sugayaa waa maxay waxa la sugayaa waxa uu yahay inuu qofku sugo systemkiisa macna systemku sugaya waa maxay qofkani systemkan uu dhigtay inuu raaco ee uu trade-ka u gelayo inuu sugo hortu trade-ka qaadanayay inuu sugo lacagta intay meesha imanayso inuu sugo intuu trade-ka istiyaarinayo inuu sugo inta lagu dul xulmeeyo inuu sugo intuu reversal candle-kii sugay helayo inuu sugo inuu rules-kaas oo dhan inuu rejection-kii sugo inaad sugtaa waa qodobka ugu muhiimsan ee laga baahan yahay sidoo kale maxaa la sugayaa waxaa la sugayaa intriga in suuqu kuu yimaado oo meeshii la doonayo ee saxda ahayd uu yimaado oo aanad ka korgelin ama aanad ka degdegin oo hadhow toona lagu odhan gaab baa jiray si exit-kaagu u saxsanaado ama meesha aad suuqa uga baxaysa markaasi u saxsanaato waxaad sidoo kale la doonayaa inaad patient ku samayso ama ku samirto ama ku calool samaato waxa loo yaqaano risk management macnaa waa inaad ku samirtaa risk management-gaaga risk management waa inaad ku samirtaa macnaheedu waa maxay macnaa waxaa looga jeedaa haddii suuqii aad aragto 5 fursadood baad qaadanaysay 5 fursadood waxaad ugu tala gashay inaad ku gasho min $1 waa maxay waa $5 adigoo $5 ku trade garaynaya inaanad oran war fursadan waa qaaliyo waa fursad xoog leh $3 baan ku galaya ama se inaanad oran fursadan waxaan ku galayaa $2 adigoo ugu tala galay suuqa inaad $1 ku gasho aanad ka degdegin ama $5 ama $10 kolba dee sida akoonkaaga ay ku xiran tahay waa inaad ku samirtaa sidoo kale haddii aad 5 trade ugu tala gasho 5tiiba win garayso waa inaad ku calool samaataa 5ta aad win garayso suuqa bartaa ka baxaya sidoo kale haddii aad ugu tala gashay inaad 3 trade loss garayso oo 3diiba loss garaysay oo fursado kale aragto waa inaad fursadaha kale ka dib tigin waa inaad 3daas aad ugu tala gashay inaad maanta loss garayso aad suuqa uga baxdaa oo ugu tala gashaa patientigu waa muhiim suuqana wuxuu ka yahay 10% hadda imsa adiga haysaa boqolkii aynu sheegnay ee aynu doonaynay inaynu xidhno waxaad iga haysaa 20% waxaad iga haysaa maxay 20% aad iga haysaa maxaa haray 80% 80%-ga keligii waxa la yiraahdaa waa risk management waa risk management ayaa keligii noqonaya waayo keligii noqonaya wuxuu noqonayaa laba shay oo muhiim ah ayaa runtii soo hoos galaya oo ah waxa loo yaqaano marka koowaad ee suuqa soo galayso waa inaanad samayn waxa loo yaqaano waa inaanad wax ka badan 1 ilaa 3 wax ka badan aanad lacagtaada badgelin macna maxaan uga jeedaa halkaas macna haddaad suuqa la soo gashay $10 oo tiraado $10 $5 ka mid ah trade ku galaya ee macnaheedu waxay ka dhigtay marka hore aad khamaar soo diyaar garowdo ama marka hore aad u soo diyaar garowdo waxa weyn aan saxsanaanba waxa laga doonayaa inaad garan karto inaanad 1 ilaa 3 wax ka badan aanad la gelin lacagtaada haddaad $10 la soo gashay $1 ku gal ama 1.5 ku gal ama wax u dhow ku gal oo lacagtaada suuqa haysiga tuurin markiiba sidoo kale waa inaad ilaalisaa reward ratio wax loo yaqaano oo ah suuqu intuu marayana waa inaad ku xisaabtami karaysaa oo haddii suuqu runtii ka hooseeyo 80 macna price-ka lacagaha suuqu waxaad aragtay mar 70 tagaan mar 90 tagaan mar 90 tagaan marba in tagaan haddii ka hooseeyaan 80 ha isticmaalo anigu hadduu ka hooseeyo 85 ma isticmaalo runtii mahe
ma isticmaalo ama hadduu af 80 ka hooseeyo runtii sorry ma isticmaalo waxay ku xidhantay de mar walba lacagtu inay ka sarreysa ayaa kuu fiican waayo adigoo hadda $10 dhigtay ama $20 dhigtay haddii aad $5 faa'iidayso de maxay ka dhigan tahay marka hore aad 5 si loos garaysayba oo adigoo laba trade guud gareeyay hal trade aad loos garayso ayaa ka daran oo runtii zero kugu soo celinaya okay halkan hadda waxaan doonayaa inaan dhaafinayo yar dul taagnaado waxaad arkaysaa waxaynu buuxinaynaa 100% boqolkii la doonayay inaynu buuxino waxaad arkaysaa 80% ka mid inuu yahay risk management waxaad ku dartaa 10 kana ku dar because 10 kani ma aha isaga laftarkiisuna waxa weeyaan waa go'aan qaadasho ayuu isaguna ku jira waa mise waa 90% waxa weeyaan go'aan qaadasho 10% na waa skill because 10kii hore ama 10kii shay hore inuu soo sheegnay 10% laga doonayay muxuu isagu ahaa skill buu ahaa la baranayo xirfad bay ahayd support resistance-ga intriga waxyaabahaas oo dhan waa skill laakiin 90 kan dambe waa go'aan qaadasho halka maxaa kaaga soo baxaya halka waxaa kaaga soo baxaya suuqan dadka guuleystaa waxay ku guuleystaan inaysan ahayn skill inaysan ahayn xirfad inaysan ahayn runtii xirfad la isdheer yahay ama in candlestick lagu kala aqoon badan yahay ama suuqa lagu kala aqoon badan yahay la yahay go'aan qaadashada in lagu kala aqoon badan yahay iyo nidaamka sida loo ilaaliyo in lagu kala aqoon badan yahay inaad hore u maqashaan ay doon ma garan karo 90% gaas qofku sida uu u barto ee uu u tixgeliyo ee uu ilaaliyo ayaa uu qof walba kaga aqoon badan yahay qofka kala suuqa runtii kagana degan yahay lacagna kaga sameeya runtii okay waxaan filayaa in qodobadaas aan sheegay kulli 10 wayna duumaya adigoo wada dhageysan doontaa aad baan runtii idinku ilaalinayaa ama aan doonayaa in qof walba uu ilaaliyo nidaamkan uu qorto isla markaasna uu isku dayo inuu dabaqo oo uu runtii dabaqo oo uu raaco waa muhiim runtii okay intaasaan kaga gudbi doonaa insha Allah 10kaas qaybtaas aan ka hadlayo theory-ga intaasaan insha Allah kaga gudbi doonaa intaana ka gudbinaan waxyaabaha kale u gudbin wixii su'aala qaybtan insha Allah arday kasta ay soo weydiiyo insha Allah magaciisana insha Allah ku bilaabo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ مقاي مختار شافي والدها سؤاله ما لقى ويديني أنت هدرتنا نشرح يمسا و10 هوران صوري قلني ما يكون والكواس كوا شاء الله ونقول بيا هذا كوني ودي حتى نعطي أنت نعطي واحد سؤال إذا كذا شيران وإذا فهمين يودي معنا ونقول بيا وحيابي كان ونقول بدونا مركز أنا وانا ديفر دونا إن شاء الله سؤاله قيب تم كهذا هذا دي واحد سؤال شيران ودي كرتين ما أنت ما تقول اوكي تيجي ارض ذا كلام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ waxaan rabaa wax ka weydiiyo qodobka ugu dambeeya risk management oo 80% codkaaga waa daciif ma garan karo waxa dhacay استاذو يعني qodobka ugu dambeeya hadda ma maqashaa si fiican qodobka ugu dambeeya risk management-ga 1 to 3 1 ilaa 3 percentage-ka aad yani lacagta gelinaysa miyaa ha macna waxa looga jeedaa lacagtaada su'aal ahaan 1 to 3 macna waxa looga jeedaa wax ka badan badaha gelin macna suuqa la gelin tusaale ahaan hadda $10 la soo gashay dan $10 la soo galay de macna haddaan $1 u dirargalay oo sameyn karaa ilaa maxay ilaa $3 ay ka dhigan tahay IQ option marka la joogo forex-ka nidaamka loo isticmaalo loo xisaabiyaa jirta oo ku soo saaraya laakiin as simple as that waxay noqonaysaa IQ option marka la joogno like sano kale noqonaysaa runtii hal ilaa $3 ka badan inaad ku galin haday kugu jirto wax ka yar $10 haday kugu jirto wax macna $10 haduu hadda 10 kugu jiro haday kaba sii yartay waa kaba sii hooseysa laakiin haduu $10 kugu jiro inaanad $1 ilaa 3 wax ka badan ku galin weeyaan trade-kaas ولا استعمال هل استعمال هل 0.5 استعمال هل 0.8 استعمال يعني الريوا ريشيو waa percentage ka suuqa riwa ratio waa percentage ka suuqa marayo waan gartay waa anigu waa labadaas xogaa tashwiishiga jira maasanta okay thank you
okay ardayda kale okay horaan uga gudbi doonaa waxaan filayaa inaan qaybtaas wax su'aali ka jirin qaybaha kale insha Allah uga gudbi doonaa waxaan tegi doonaa ardayda telegramkan insha Allah tegi doonaa si ay u shees kula marino trades u dambeeyay sorry okay okay one more time waxaan doonayaa inaan u shees la marino bal tradeski maanta ardaydu qaateen ee groupkeena kula soo wadaageen inaan u shees insha Allah isla marino kadibna su'aalahan si toos ah ku furaya markaas okay okay hadda si fiican baa loo arkay waan filayaa waxaan kasoo bilaabi doonaa okay waxaan kasoo bilaabayaa iyo halkii isugu keen dambeysay ama shalay tahay waxaan filayaa xiisadeena isugu keen dambeysay okay waa tana okay halkan insha Allah ka bilaabi doonaa xiisadii shalay tahay u dambeysay soo dhignay waa tana ardaydii shalay tahay aan maqnay waxaan filayaa inay casharka wada daawadeen oo runtii muhiim waxa ah in ardaygu hadduu maqan yahay uu ku ceshado casharkaas uu ku ceshado wixii su'aalaha insha Allah toos loola soo wadaago markaas okay waxaan ugu horreysiin doonaa kan ayaan ugu horreysiin doonaa runtii okay okay hadda ardayga kale waxa uu isticmaalayaa waan filayaa nidaamka trade line-ka ayuu isticmaalayaa oo ah marka uu helo trade line-ka saarto one seller soo galo inuu suuqa sii raaciyo ama sellers ku sii raaciyo waxaan doonayaa inaan badi aan su'aalahan ka jawaabayo ay noqdaan kuwa ardaydu la skareeyeen ama inaan kuwaas la eegno ayaan runtii doonaya hadda ardaygan kale waa saxan yahay oo informationkiisu runtii waa saxan yihiin oo nidaamkiisu waa saxan yahay oo waa trade-kaas uu qaatay okay yab kanoo kale haddaan hadda u fiirsado leftiga walow aynaan arkayn levelkii la jebiyey laakiin waxaan arkaynaa halkan uu suuq ka soo daatay oo momentumki jiro reversal candle-kina hadduu kaas yahay spinning top I don't know isaga laftarkiisina caadigu ma arko oo waxa qarsiyay levelkan baa qarinaya laakiin shalay toole waxaynu isticmaalayna waxay ahaayeen candleska kuwa casaanka ah runtii waa ka strongsan yihiin mar walba levelkan waa ka strongsan yihiin midda kale aan kugu tixgelinaya waxa weeyaan levelkaaga mar walba waxaad isku daydaa in runtii momentumka ka daadanayo uu sidoo kale runtii u xoogan yahay hadda levelkan waxaad arkaysaa week momentum inuu ka tegay weeka momentum inuu ka tegay haddii meeshii week momentum ka tegay oo momentumkii ka tegay daciif yahay momentumna meeshii lagu yimi waxay ka dhigan tahay xitaa candle-kina uusan isbedelin in lagu jeeri karo waa impossible waa possible baan jeedaa markaas waa inaad ka taxadirtaa mar walba okay waan dhaafi doonaa iyagana waxaan u gudbi doonaa tradeskan kale iyaguna waa weyn okay ardaygaas runtii aad buu fiican yahay waxaan filayaa waa mukhtaar baan filayaa ardayga ku qoran tahay okay ardaygaasi yes waa mukhtaar mukhtaar aad buu runtii u fiican yahay tradeskana la wadaagayna aad buu u mahadsan yahay ardayda inta badan tradeskana la wadaagtana weeyaan waan ka socon doonaa okay ardaygan waxaan filayaa ardaygaas magaciisa uguma qorna laakiin haddaan qaldanayn inuu ardayga guuleed ugu qoran tahay yahay baan filayaa I don't know ama Nuruddin ardaygaas runtii ma garan karo ardaygaas magaciisa inuu ku qorto ayaan runtii jeclaan lahaa kan trade-kaas wuxuu ku qaatay sida inoo muuqata as a continuation ayuu runtii u qaatay walow aynaan arkayn laftiga momentumkii ka jiray ma arkayno kanoo kale laftarkiisuna waa isla trade-kii asal laakiin waa historygiisii oo kaleera trade-kana wuxuu ku qaatay as a continuation ayuu runtii ku qaatay sida inoo muuqata okay kana waa continuation okay ardaygaas wuxuu qaatay maxay waa levelkii candle-ku isticmaalayna waa maxay waa kaleer candle-kii ayuu isticmaalay walow gaab laga geliyay because hadda waad arkaysaa momentumka ardaygaas isticmaalay runtii waa kaleer si fiican oo kaleera ayuu runtii momentumkaasi meesha uga soo daatay ardaygan wuxuu isticmaalaya continuation sidoo kale losses ardaygaas ma arko aan iska soo dhaafo waxaan filayaa in ardaygaas yahay Saciid ninkay ku qoran tahay inuu yahay waan filayaa isaguna runtii waa fiican yahay nidaamka uu isticmaalayana waa maxay waa continuation-kii ayuu runtii isticmaalay iyo reverse-kii labadiiba waa isticmaalay good baan isagana leeyahay Axmed Saki waan iman doonaa wuxuu isticmaalay level in here momentumka runtii lagaga tego waa kaleer levelka la jibiyo waa kaleer all of this waa kaleer wax walba runtii waa kaleer okay halkan oo kale waxaan arkayaa in halkan uu yahay isaguna levelkii halkanna uu yahay levelkii rubiska dhan kuwan yihiin isaguna uu yahay maxay uu kaleer yahay isaguna runtii waa masha Allah isagana guuleysan leeyahay aan hore u dhaafo ardaygan oo kale wuxuu isticmaalay isaguna levelkii iyo in kastoo aanan arkayn leftiga inuu level ka qabsaday laakiin waxaan filayaa inuu level yahay
isaguna runtii waa saxan yahay kay aan dhaafo markaasi kanoo kale laftirkiisa waa maxay waa kaleer maasha allah arday badankoodu runtii nidaamka sidii la doonayay ardayda gaar ahaan inta nidaamkiina la wadaagtay inta runtii halkan traderska soo dirtaa aad bay runtii u fiican yihiin oo runtii si fiican ay runtii u isticmaalaan nidaamkii u isticmaalaan oo runtii ay ugu trade garayaan ardayda aan nala wadaagina markale aan baraarujiyaha isku dayaan inay nala wadaagaan haddaad doonto qalad haddaad doonto loskareen laakiin nala wadaag si runtii lagu saxo oo qaladkaaga lagaga saxo ardaygan muxuu isticmaalayaa continuationkii ayuu runtii isticmaalayaa isagana runtii waa kaleer waa mukhtaar oo soo noqday waa axmed saki baan leeyahay weli sii socda isagana guulaysaan leeyahay okay aan iska dhaafo intaas u dambeysaan filayaa maadaama suulkanu kale ka yahay hadda ardaygan baa ku xiga okay ardaygaas ay soo diray waxaan filayaa halkaas level ma noqonaysaa ardaygaas qoraal baa soo diray halkuu leeyahay level ma noqonaysaa meeday waa halkaas yes halkaas waa noqonaysaa level waa ay u noqonaysaa because horti momentumki waa laga daadiyay ishaad waxa kooda doonay aragtaa momentumki waa ka daatay yes momentumki maadaama ka daatay levelkii la jibiyay hadda halkan kama muuqdo laakiin left egg baan ku left maxaad arkaysaa in here the level bay ahay halkan waa maxay waa level ka suuqaasi ma jibiyay yes waa jibiyay markuu kusoo noqdo maxaad leedahay waa level okay kala okay waa muhiim inaad su'aalahaas kala isweydiisaan wax badan ma runtii aad sheekaysaan okay halkan oo kale laftirkeeda aan eego hadda marka isha koowaad maxay qabanaysaa waa momentumki waa ka bilaabay maadaama momentumki ka bilowday levelkii la jibiyay mee okay waa kan momentumkeeni momentumki maadaama saddex ka dhan momentumki yihiin intaan oo dhan isaga xisaabinaynaa oo runtii suuqu inuu kaga tegay aynu xisaabinaynaa okay hadda levelkaas waxa ka strongisan oo ka horeeya inaad kan isticmaashid kan ka horeeya laftirkiisa waa level waa level yahay because suuqu waa impulsive correction impulsive hadduu ku soo noqdo kan waa level laftirkiisu halkan waa maxay waa level kaadi oo de structure-ka wixii aynu muddada ku soo dhigaynay ay runtii ahayd oo levelkeena saxdime waa kaasa okay isagana iska dhaafo okay waxaan filayaa in intaas ay naga eegtay waxa loo yaqaano ardaydu sadariskeen la wadaageen ay naga eegtay runtii aan ku soo noqdo markaasi platformkeena ku soo noqdo waxaad la wadaagi doontaa markaas insha Allah arday kasta wixii hadda su'aalo uu qabo waxayna la wadaagay insha Allah nidaamka wixii su'aalo ka qabo arday kasta ay la soo sheer gareey insha Allah السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waa mukhtaar haddeertaan tiradii ugu dambeeyey ninka tadriibiya inta markii wax yar adoo raali waxaan rabaa inaad hadda ii sheegeen wixii ii sheegeen haddeer aan soo diray oo dhahay meesha ma level ba inaad hal mar iigu noqotaan su'aalkaa weydiiyo telegramka waxaan filayaa tiradii ugu dambeeyay kaas ka yes okay so insha Allah ustaad waxaad tiri levelka waxaad tiri waa inuu jabiyaa hayrkii ka horreeyey ama level kadib hadduu dhown tiran yahay marka hadda kan hadda calaamadda saartay waxaan ii sheegeen ahaan aan siri muusan jabin baan jirta macnaha saddexdii kandal levelka yarka saddexda kandala bay jabiyeen laakiin meesha u dambeysay oo maysan jabin baan ii sheego macnaha lower high ah marka sidaasaan ku weydiiyey ka war صح ويان هذا معنى اك سوقني حطوها هلكا كسو بلوده عادي ahaantiisa maxaa laga doonayay caadi ahaantiisa halkan isay level noqoto waa inay bartan jibisay ahayd inay halkan jibiso momentum ka soo dhacay inuu bartan jibiyo laakiin ka waran suuqii hadii de waxa laga suuq inuu san iskaga socono inuu san u socdo laga yaabaa hadduu saa u socdo oo waliina meeshii la gaarin miyayna kuwan dambe kuwan hoos suuq ku soo socday jibiyo iyagu level la ahayn ولا فلو ولا فلين نقنيا معنى ما كسوقن هذا انتو كدغان yahay waa intaasa intuu hadda ka dhigan yahay waa intaasa macna tani markuu halkan jabiyo kale weyn waad sugaysaa inuu suuq levelka ku noqdo oo hadda kan ka ka dhaxaya laakiin levelkan ka soo horeeya levelka saxda ah suuqa laga sugayo inuu mustaqbalka ku soo noqdo ee confirmation hadii laga tira garanayo kale hadal baa soo dhaxgalay ka waran halkan baa jira kan baa ku jira kan no problem because 1 2 3 wada haysataa aduu bartaasoo de macna kandalka jabiyo miyuusan kan ahayn inuu qasab maaha inuu momentumkani suuqa jabiyo inuu saddexda jabiyaan muhiim maaha hadde
inay saddexdani meesha jebiyaan muhiim maaha waa inuu dhaqaaqu jebiyaa muhiima hal mar bay qalatay hadda aan halkan kugu sawiro si kaleera casharkaas hore aad su'aalahaas kale wax badan bay ardaydu hore weydiiyeen oo runtii hore uga jawaabay waxa weeyaan hadda suuqii levelkaygu waa kaas soo qad suuqii me waa kana levelkaygu levelka dooniyay me waa kaasa momentum ma barta ka soo bilowday momentum baa he barta ka soo bilowday haddii momentumkii dee dhaqaaqii soo kacay uu jebiyo halkaas miisan level ahayn ha ku saddex kandhalo momentum ka bilowdaan sidoo kale waxa ku jira aad ka soo qaadaa candle green casaan green intan damo dhan iska haato laakiin hal mar bay qalatay halka mar ay qalatay waxa weeyaan intuu momentumkii bilowdo inuu halkan la sameeyo waxa loo yaqaano lower higher lower higher haddana higher lower haddana higher haddana low macna inuu meeshii trend noqoto oo iyada laftarkeeda ay trend noqoto qalada laakiin haddii wan impulsive noqoto candle iska soo dhigaya muhiim maaha wax dhiba ma laha ma fahantaa halka صح وافق. Okay, another question is كي كحجينا هالمركون كوري isagana maxaad arkaysaa isaguna waa kana momentumkii waa kaasa levelka la jibiyana waa kaasa طبعا في دين levelka la jibiyana asna shuruudaha laga marramaya ma ka dhaliyo ka badan noqdo inuu asna levelka maya lagama rabo waa in meel uu sheeg baayar ka bilaawday maya waa inuu meel macna level ku noqon karta ay macna support ku noqon karta ay tahay macna meel support hadda halkan waa maxay hadda halkaas level waa inuu noqon karta halkan shuruudii ma dhamaysatay waa maya ma haysto shuruudihii laakiin haddana waa level de waan arkayo aanan iska dhatiri karin laakiin shuruudihii ma dhamaysan صح هذا الكاس هو محي هذا الكاس وايد ما هالشروطي ما يدرس لكن هذا هو الليفل أنا أركيه وأنا نسكن نتركني كلر هو الليفل صح ماشي صح معنى هكذا هو كوال الليفل ومن الليفل لو قالت له وتطبع كتر الجريدة تطبع سبور ليفل إنك يوم ما هلا كنت تبيوتي هلا ملك الصوي شيء قاعد لو كان لما هل كان الكلام موبايل ولا level دي لو تبي يعني level كم أورا كم شيء ميزك ده ما يهرت هذا الكيك سيفي عن هذا الكيك اسكت هنا سيفي عنه فهمته هذا الكيك اسكت هنا سيفي عنه فهمته معنى هدي أو كذا هل كندم ملك الصوي أما لو كندم إذا هدوا ثلاثة هذا كندم قال ده تقاطه إذا بس كنا سالك يابا واي أيام كله يسلا هذا هل كان مركز إيش أكو أكتم level مكون نقطة تمسك ومن نقطة because ميون السوق يعني impulsive correction impulsive أهين halkan miina bullbag ahayn meel bullbag ahaan jirtay waa meel la jibiyo hadii la jibiyo waa ku noqon karaysa meel la jibiyo sax way ku tahay halkan miisan ahayn impulsive correction sax miina ahayn halkan waa ku tahay halkan miisan ku noqon karin hadda halkaas ma taa aniga level hadda halka hadii la jibiyo ma oran la waa level waa shan kandhal de ma oranayo why because waa correction waa consolidation it's not ma hal level sax kala هل هذا هو إمبالس كذا دقيقة لفلا معنى وده هاي إمبالس كذا دقيقة مش حقيقية يده يا أستاذ أنكلو في ديني أستاذ and هذا شيء كان تريد هو هذا شيء ثم دخله مال بحري كان سهل لفل لحاي شيء كان الله بايك صدي بركبايجي مش سوق الفرس الكوع كصباح كان اليورو فينا نسوي جزء مشينا level كنا موسم طبعا لكن حاجة واحد وترجع بعد هي كان الكلام في الموضوع جديد مركب أما إيش إن جاب كلا بحيمية سوقية تا جاب كت صورة عيا يوصل بحر وصورة عيا جاب كت سوسيل بحيم هدو تابتنا أو هدي وتابتو أو كان الكاس ده وسن واحد جاب جرين أو سفي عن لا تابتو ماشي لبحيم أو كان الكاس إنه كنت ريدي هاي وتقاعد كرسة تريد كاس لكن ما هو الباق جاب كوين بحيم جاب كس كذا بس اوكي ardayda kale aan gudbi doonaa insha Allah waqtigana kulli waa isku raya markaas insha Allah ardayda kale waxay su'aalaha inoo soo wadaagaan hello السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها أستاذ وين أحمد وين مركا سو حربنا كويديو إنك دليرة إن هذا سو كويديني الليفل كان هاي marka ustaadu yani level kan aad u fiirinayso sida aad u ka dhawaajisay
يعني waa meel suuqu uu hakasho ku sameeyay ma meel laba kanal ka bilowday Soomaa hakasho ku yar sameeyay kala macna muhiim ma ahayn laba kanal mararka qaar ka hal kanal ka bilowday xitaa ku noqon karaysa waa meel hakashadu mararka qaar way noqotaa hal iyo laba kanal waan arkaa kadib suuqu sii socdaa sax waan gartay ustaad mid kale rabo inaan ku weydiiyo strong kanalka oo yani loo fiirinayo isna rulka ku jira rulkan yani levels ka adana isticmaaleno isna de kanalkan aad u fiirinayso levelkii rulkan uu ka waafaqaya Soomaali level la jibiyay isna waa rules ka dhawaan wata waa in waxba kama kala duwana kaliya marna waa saddex kanal marna waa hal kanal laakiin rules ka waa ka sameeyay ustaad laakiin mid baad ka tagtay yani markaad bilaabaysay yani koorsada waxaad noo sheegtay saddex meel in loo isticmaalo strong levels meelaha mararka badan laga soo celiyo adoo isticmaalay kuma ba aragay maxaa dhacay meesha sababta lagu tagay waxa weeyaan meeshaasi waa strong level laakiin uma shaqeyso sida labada meel ugu shaqeeyaan because iyada waxa loo yaqaanaa liquidity inta badan ku xayiran oo meel maadaama suuqu dhowr jeer ku noqnoqday hadda halka sidan oo kale maadaama dhowr jeer ku noqnoqday waxay ka dhigan tahay meel macna liquidity ku trap gareysan tahay oo dadka hadhow la jiiri doono oo hadhow toole lagu sameyn doono breakout inta lagu sameeyo hadhow noqon doono ama la sii socon karo uma shaqeyso sida labada meel ugu shaqeeyaan ilaa liquidity malacag ba liquidity waa macna ha lacag ba ku xayiran macna waa dad badan ba marka forex la jooga la isticmaala conceptgaas waxa weeyaan dad badan ba halkan isku dayayna ka galaan weeyaan oo tradeskooda ka furan oo arkay level adag u arkayo tradeskooda ka furan yihiin hadhow la jiiraya oo yani waxaan suuqa beenguul ku sheegaan ma forex waa beenguulka kala waa macna mitigation ka manipulation ku meesha ku dhaca weeyaan inta bul fake breakout sameeyo lagu noqonayo ama continuation ka laga dhigo kala صح marka qodobkaas saas uga tagtay isaga saas lagu tagay waa ku arkaa badanaa labada rule adoo isticmaalaya on arkaa okay thank you okay hal minute ba ka harsan session ka lagu talagalay kala isuulka arday kale su'aalo kale ma jiraan ma filaya okay waa isku soo gabagabayn doonaa insha Allah wixii kale su'aalaha insha Allah waxaan isku weydiin doonaa qolkeena Telegram-ka insha Allah isku weydiin doonaa inta ay ku kulmi doonaa insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh